إلهي عبسيدي سونا أريهانا وأكوبنته dhaqanahaanna waa u ballaarantaho noloshoo dhan way eray waa u koobantaho wixii ilaahay ku farayna ku dadaal samayntiisa wixii rabbi kaa reebayna ku dadaal ka fogaanshihiisa labadoodu haddii wax kaa dhacaanna ka soo noqo oo ilaahay uga soo laabo wixii lagaa reebayna waa ku khaldami kartaa oo waad geli kartaa ma fiicna hadday dhacdaan laakiin isdaba qabo inaad alla ka cabsatay kaa diidi mayso haddaad dib uga soo laabato oo ilaahay baaba qur-aanka inoogu sheegay oo yidhi ina aladiina ittaqow idaa massahum taa'ifun min ashaytaani tadakkaruu faidaa hum mubsiruun kuwa ilaahay ka baqaay hadduu shaydaanku waxoogay riixo waxoogay lumiyo meel ka yar tuuro way isxasuustaan way isqabtaan kadib waxay arkaan khaladka ay galeen dibna way uga laabtaan waa dadka ilaahay ka cabsada sida lagu yaqaan ma qaldamayaal maaha laakiin qalad kuma adkaystayaal weeye ilaahay cabsidiisu adduunyada ifka aan joognaay qofka mu'minka ah iyadaa garab iyo kaalmo ah haddaa si kooban u eegtana ifkan ilaahay baa iska leh cirkiya dhulka isagaa leh isagaa wuxuu doona maamula wuxuu doonana sameeya haddaad beled timaado ama meel timaado cidna ku amar ku taaglayso waxaad uga baahan tahay isagaad weydiisataa adduunyadan ifkan ilaahay uu maamulay iyo aakhiradeedaba waxaad isaga weydiisato waxaad uga baahan tahay isagaad kaalmo uga heli isagaana ballan qaaday wuxuu yidhi haddii culays kugu yimaadana meelaad ka baxduu kuu samayn waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan haddii ciriiri nololeed xataa uu yahay wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib hadday arrimo guud kugu adkaadaanna waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran saas darteed cabsidu waa kaalmada iyo garabka adduunyada qofka muuminka ugu weyna uu helo waa ilahay inuu garab weydiisto saas darteed salaadaheenna farad iyo sunnaba ragcad kasta waxaan ku akhriyaynaa wa iyaaka nastaciin adaan garab ku weydiisanaynaa adaan kaalmo ku weydiisanaynaa haddaad rabbi kaalmiya garab uga baahan tahay wixii uu kuu diray samee waa sida ugu fiican ee garabka iyo kaalmaha rabbi uga baahanteed weydiisanaysa aad kaga hesho waa inaad wixii uu kuu diray samayso wixii uu daa ku yirina iska dayso ilaah waxaad ii dirtayna samayn maayo waxaad daa tirina dayn maayo labadabana waad ii jeedaa kaalmana waan kaa rabaa wuu ku kaalmayn karaa cidna ma xakamayn karta awoodiisana ma xijaabi karto laakiin war habboon oo isqaban kara maaha war habboon maaha war waxaa waayahe samayn maayo waxaa iska daa dayn maayo maxaad rabtaa inaad ii garabsiiso ii kaalmaysaan rabaa wax isku habboon maaha waxa habbooni ilaah waxaad ii dirtay sameeyey waxaad daayi tirina daayey ii kaalmee marka saa la idin leeyahay si kale haddaad u akhrido tawasul bilcamali saalix soo ma taqaanaan saddexdii dhaguxuu ku dumay ilaahu saa darta haddaanu sameeyey dhibaatada naga qaad oo laga qaaday waman yattaqi illaaha saasaa loo yidhi ilaahay qofkii ka cabsada yukafir canhu sayi'aatihi dembigiina waa laga dhaafi saa darteed buu ilaahay wuxuu ku tilmaamay taqwada laba tilmaamood oo nolosheenna aasaasi ka ah midda koobaad noloshu sahay kama maaranto haddaad meel dhow gaarayso gaarigu shidaal buu u baahan yahay taayiradiina iska fiirisana wuu u baahan yahay oo haway u baahan yihiin adigana waxoogay beesi iyo pocket money baad u baahan tahay hareerahaad fiirin oo jeebkaad taataaban oo kaarka iyo telefoonka waxa kugu jiraad fiirin aakhara iyo adduunba ilaahay cabsidiisu waa sahay iyo zaad watazawadu duniyada sahay qaata sahay maxaa u fiican marka la isbarbar dhigo faina khayra zaadi taqwa wattaquun ya ulil sahayna cabsi allah ugu fiican adduunyada lama ogola sharcigu ani waan iska tegay oo kolba meesha magaalada maraan ka sii tuugsan lama ogola adoo xili kara xaj baan aadi sahay qaadan maayo jidkaan sii tuugsan oo makaan ka tuugsan midna zaadkaaga iyo sahaydaada ku talagalaad qaadanayso tawaati adduunyada markaad meel marayso safar aadayso sahaydaada qaado laakiin safarta ugu dheer in ka soo noqon lahayn
saadkeeduna ugu nacfi badan yahay waa taqwada fa inna khayra zaadi taqwa dunida ilaahay wuxuu ina amroo kale sida nabigu yidhi inna allaha jamiilun yuxibu ljamaal isqurxinta ilaahay waa jecel yahay nin nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolo badnaa oo isagoo diif badan ka muuqata u yimidna wuxuu yidhi war xoolo ma leedahay markaasuu yidhi xoolo dhan ilaahay waa isiiya lacag lo geel ari guryo wax beer wax walbaa leh wuxuu yidhi inna allaha yuxibu idaa ancama axadakum an yaraa calayhi athara nicmatih nicmadii inay ka muuqato ilaahay jecel yahay adigoo ilaahay waxa ku siiyey adoo basaasan oo miskiin tuugsanaya ha u ekaanin nicmada ha kaa muuqato jirkaaga waxa ka sii xaq buu kugu leeyahay iyadoo saa la yidhi ba haddana waxaa la isqurxiyey ilaahay inoo soo dejiyey dharkaa ka mid ah wariishan dhar quruxsan buu ilaahay idiin sameeyey laakiin walibaasu taqwa dalika khayr cabsida ilaahay waxaa dhar laga dhigto baa ugu khayr badan inaad dadka ku dhex joogto sharaf u aragto ku xaragooto inaad ilaahay ka cabsanayso masaajkaad imanayso quraan akhrisanayso salaada tukanayso soomayso xajka aadayso dembiga iska ilaalinayso qofka mu'minka wuxuu sharaf darajo iyo xaraga ka raadiyo way dadka mu'miniinta ahna qofka ilaahay cabsidiisa ay ku yaqaanaan baa kaga qiimo badan qof tuuga lagu yaqaano dhar iyo suud qurux badan qaba innagoo tuban hadduu yimaado qoraan dhar iyo tay iyo suudad iyo aan soo xiran laakiin iimaan alla ka cabsi iyo khayr aan ku naqaano yimaado oo uu yimaado midaan tuugo iyo been iyo burcad ku naqaan laakiin dhar qurux badan soo qaatay kanaa ka saamayn badan quluubta muslimiina ka jeceshahay labadaa golaha haddii laga waayo kanaa la hortabayaa ilaahay lagu xasuusto saa darteed qof ku xaragooda qiimo iyo xaragada iyo qiimihi iyo quruxduna wax qaacido go-an ma laha qof walba wuxuu rumaysan yahay baa qurux u ah dhaqankaa saameeya modelkaa saameeya dharaadan shilin bilaash ku qaadateen bay qowmiyada ku xaragoodaan sarwaal lugaha iyo bawdyahaba wada jeexjeexan bay kuwa quruxda ugu badan u yaqaanaan daba qaawan bay kuwa qurux u yaqaanaan waxaan waa quruxsan yahay adigoo caalamka yurub bartankeeda jooga ama carab bartankeeda jooga baad go-shaalahi qurux u taqaan dharka afrikada galbeed laga xidha haddii ciidda lagu siiyana xidhan maysid bilaash ku qaadan maysid laakiin meelaha la isugu yimaado kii suudaaniga dharkii suudaanta buu ku soo xaragoon kii soomaaliga soomaali buu ku soo xaragoon kii west africa ku soo xaragoon hal masjid baa la wada joogaa 100 dhar baa la kala qabaa mid walba wuxuu rumaysan yahay dharkii ugu qurux badnaa inuu qabo qaarkoodna qaarka kale waxay ku xaragoonayaan koob shaah ma siisteen haddaba quruxdu dhar go-an ma leh waa hadba wixii adinku aad isku qanacdaan baa qurux qofka muslimka ah waxaa qurux iyo sharaf u ah wixii alla ka cabsi iyo iimaan wanaagsan sadarta cabsidaas ilaahay baynu isu dardaarmaynaa meel kastoon joognaba iimaanka iyo alla ka cabsiguna inuu cizo iyo sharaf iyo wax lagu faanaan noqdo adduunkana gargaar buu kuu noqon aakharana waad ku badbaadi wax kuugu kordha maahane waxaad ku waayina ma jiro